waxaan dadka Soomaaliyeed uga tacsiyeynaynaa weerarkii gaadmada ahaa ee fulaynimada ahaa maxaan ku iraadaa diin la'aanta iyo dadnimo xumada ahaa ee nimankan cadawga ah ay ku beegsadeen saakay subaxdii aroortii hore salaadii la dukaday dad abriya ah oo mas'uuliyiin ah iyo qaar shacab caadi ah inta ka dhaxlaba oo salaadii subax inta soo dukaday wali tasbiixsanayo in weerarka noocaas lagu qaadaahay arrin aad iyo aad u xanuun badan fool xun diinta islaamka iyo dadnimada iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida meel ay ku bannaan tahay ama ay cudurdaar ku leedahay aanay jirin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay sii gartaan un maalin walba cadawgoodu meesha oo dadku ay ka nugul yihiin iyo waqtiyada ay nugul yihiin inay gaadaan inay ku filan yihiin waxaan leeyahay ummadda ha u midowda cadawgaas halala shaqeeyo dawladda halala shaqeeyo ciidanka amniga waxa ugu muhiimsan oo lala qaban karana waxay tahay nimankaas weerarkay soo qaadeen meelaha ay soo mareen meesha ay ka yimideen dad Soomaaliyeed baa arkay ogaa dadka Soomaaliyeed hala soo sheego dad saas oo wadada iska marayay mid masaajid ka soo baxay iyo mid maxaan ku iraada yaa meesha maxaa saaka yaa ku dhintay adigu inaad tahay markay qarax sameeyaan meesha marisid ma ogid ardagaagi iyo cunugaaga iskuul u dirtay ahaa midka meesha marayo qaraxu la kulmaya ma ogid gabadhaada ama xaaskaaga iyo maxaan ku iraada suuqa ka soo adeeganaysa ahaa ma ogid qofka qarax la kulmayo raalli ha ka noqonin ha qaranin ayadoo qarax la abaabulayo ayaguna waxaan leenahay saan horeba u niri xaqinka iyo dhulka xaqinka dhamaad dadku waa soo haraan dadka Soomaaliyeed qarax kuma leeyin kartiin waana idin barteen waana idin arkeen dambiga ilaahay xaqiisa baad sii kororsanaysaan asbaabtii dadka dhimanaya baad naqanaysaan laakiin qofkii dhima lahaa qadarta ilaahay ku timid uu dhimanaya idinkuna dambigiisa baad xambaaraysaan wax weyn Soomaaliya ama shacabka Soomaaliyeed diintooda iyo dalkooda iyo dawladnimadooda aad ka bedelaysaan haba yaraatee ma jirto